السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وناكسن كنا سودوا هذا ورك دنبال كتيفي قطبنا نكسو قادة دون برام جريد كان هدي الله وقدره وحكم ذا وركي جدا بيه مدفعني ورا الصومالية محمد عبد الله فرماجو وكسو لابنا يو مالين تبريتا مقالة مقدشو يغبان غابدي وجدا بيسيس ودوين تمدحبينا فرماجو وكسو عن يسوع مقالة وحدلوا ذاك دونا حقيقي معلومات كوادن ciidamo loo diyaariyay madaxweyne farmaajo kuwaasi ammaankiisa sugayo intuu ku sugan yahay Muqdisho iyo sidoo kale filla Soomaaliya walaal xoog la ka muujinayso imaashaha farmaajo ee magaalada Muqdisho xoogay macluumaad arintaasi ku aadan ayaan idin wadaagi doonaa qodobada kale idin soo gudbin doono barnaamijyadeena qayb ka noqon doona hadii la weyno waqdaro waxa kamid ah macluumaadkii ugu dambeeyay madaalo oo soo hadlay kadib markii Mugaab loo xiray inuu noqdo musharaxa gobolka Banaadir ee xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka xisbiga Xasan Sheekh wali halkii ugu sareysay ayuu marayaa waan idin wadaagi doonaa Puntland waxay argagixisay ku tilmaamtay dawladda ka jirta xamar haddaba waxa la wadaagi doonaa mas'uul ka tirsan Puntland oo si la yaab loo weeraray dawladda federaalka Soomaaliya fadeexadii ugu weynayna dhaxda ka dhigay xilli fariintaana Puntland ay wacad ku martay inay gaarsiin doonto ilaa ya caalamka magacyo wasiiro oo ay sheegtay inay la shaqeystaan kooxo argagixisa Puntland ayada yaab kale u jeedisay dawladda federaalkana warayaan idinka keenay soo dhawaad saaxiibayaal haddii aad saaxiibnigu cusub nagu soo bir muuqaalka like saaragtada wax dhisisan ugu reeb qaybta hoose dadweynaha waa hagaagan ku bilaawno wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa isla markaasina ugu horeysiinayna wararkii macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddo kadib lagu wadaa in maalinta Biritaan uu ku soo laabto magaalada caasimadda Muqdisho waxaana la soo sheegayaa in Muqdisho hadda ay ka soconayaan qabanqaabadii iyo sidoo kale abaabulkii ugu dambeeyay ee la xiriiray soo dhaweynta madaxweynaha hore Farmaajo siyaasiyiintii ugu badnaa ayaa iska xaadiriyay guriga Farmaajo ee magaalada Muqdisho iyagoo halkaas ka bilaabay kulamo kala duwan oo ay ugu gogol xaarayaan sida madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda loo soo dhaweyn lahaa sidoo kale waxaa la diyaariyay ciidankiisa ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo kuwaasi oo garoonka ka soo galbin doono isla markaasina gelin doono hoyga uu ka degay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa imaashihiisa Muqdisho waxay ku soo aadaysaa iyadoo dalku hadda oo cagaha galiyo wadadii doorashada isla markaasina mudxiraadka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gabaabsi yahay waxa la soo sheegayaa in hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gabagabeeyay shirarkii uu ka waday magaalada Ankara ee dalka Turkiga halkaas oo xubnaha xisbiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nabadda nolol ay kulamay ku lahaayeen kulamadooda ayaa hadda la soo gabagabeeyay waxaana ay ku soo beeshabateen madaxweyne Farmaajo u dhaqaaqo magaalada Muqdisho xisbigiisa nabad iyo nolol in uu si rasmi ugu dhawaaqayo iyo sidoo kale qaabka isbahaysiga uu ka abuuri doono magaalada Muqdisho ayaa indhaha lagu wada hayaa imaashihiisa ayaa macno weyn waxay ku soo kordhin doontaa siyaasadda Soomaaliya iyada oo madaxweyne Farmaajo uu noqonayo siyaasi banaanka ka taagan inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan Muqdisho kuwaasi oo sanadadii dambe ama bilihii dambe mucaaradsanaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina la imaan waayay hal abuur siyaasadeed madaxweyne Farmaajo ayaana imaashihiisa filla Soomaaliya waxay ku noqonaysaa fariin wadna qabad ah geesta kaleetana xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka dhaxdooda ah waxa uu noqonayaa mid si xargagoosanayo marba marka ka dambeeya barnaamijyadeena hore waxaan idin kula wadaagnay heerka dagaal ee xisbiga ka dhex taagan waxaan ogeyn in loolanka ugu weyn uu ka taagan yahay xubnaha xisbiga oo isbuurasho dhaxdoodu ay ka taagan tahay gudoomiyaha gobolka ninka Mugaab la yiraahdo ayaa laga dhigay musharaxa xisbiga ee gobolka Banaadir iyada oo aan laga talagelin guddiga fulinta ee uu madaala qayb ka yahay hadda madaale maanta wariyaasha ayuu isugu yeeray afka baarkii ayuuna furtay isaga oo cambaariyay wixii shalay dhacay waxa uu sheegay inuusan waxba kala socon isagoo guddigii fulinta marka in madaale uu ka baxo garabka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo arkaa dharbaaxa kale oo madaxweyne Xasan Sheekh ku dhacday kooxdiisa xisbigii ayaa hadda burbur ku dhow iyada oo dadku isweydiinayaan haddii doorashada xisbiga dhexdiisa ka soconayso musuqmaasuq heer intaas leeg aduu ka jiro sidee bay rabaan kooxda Xasan Sheekh Maxamuud inay dalka lagu aamino laguna qanciyo inay qabanayaan doorasho xur iyo xalaal ah marka calaam su'aal weyn halkaas ka taagan marka doodaas adiga aragtida hoos ayaa nagu reebi kartaa geesa kaleetana Puntland waxa ay dawladda Soomaaliya ay ku tilmaamtay dawlad argagixiso oo Muqdisho ka jirta wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Ciidi Dir oo shir jireed u qabtay wariyaasha
ayaa si la yaab leh u ceebeeyay dowladda ka jirta xamar waxaana uu shaaca ka qaaday in wasiirada xukuumadda inay yihiin kuwa al-shabaab ah ama argagixisa waxa uu soo qaatay wasiirka diinta ee awqaafta ninka lagu magacaabo Mukhtaar Roobow Mansuur waxa uu ku tilmaamay in dad badan soo laayay wulina argagixisa la shaqeysto al-Cadaala waxa uu sheegay in wuli shabaab yahay fiqi sidoo kale marka ragaasi oo idil ayaa ku jira buu yiri dowladda xamar ka jirtay argagixisada marka argagixisaan la yaana waxa soo cuskanaya in wasiirada xukuumadda dhamaantood ay yihiin rag shabaab ka yimid marka eedaasi waxa uu yiri falalka ay wadaan oo ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan Puntland hadii ay jooji waayaan waxaan qaadaynaa talaabada ku haboon oo lagu dagaalamo argagixiso Puntland hadda dagaal ay ku jirtaa argagixiso yiri waxaan u soo qaatay kooxda Daesh ee Puntland la dirirayso caalamka waa inay indhaha ku hayaan buu yiri dowladda argagixisada ah ee xamar ka jirta hadalkan ayaa noqday mid si weyn loo hadlayo dhowrkii saac ee la soo dhaafay warbaahinta bulshada ayuu si weyn u galgalay hadalkan ayaa noqday saacadii la soo dhaafay mid si weyn u galgalay warbaahinta bulshada nabadgelyo